habeen wanaagsan daawadayaal kuna soo dhawaada barnaamijka caawa iyo caalamka waxaan ahay Farxaan Maxamed Jimcaale qodobada wararka ugu waaweyn waxay kala yihiin ugu yaraan 6 dumar ah ayaa lagu dilay weerar rag hubeysan ay ku qaadeen koox haween oo ka shaqeeya nadaafadda inta u dhaxaysa Muqdisho iyo Afgooye warbixin ayaanu idinkaga haynaa qodobada kale ee caawa warar ku jirna waxa kamid ah waxay baadi goobayaan amaan laakiin sarayaasha iyo kaymaha ku yaala Botswana ma yihiin meel maroodigu uu ku nabadgalayo waa gabdhaha kaliya ee ku dhiiraday in kubadda cagta ay ku ciyaaraan magaalada Muqdisho iminkaas waxay sheegayaan inaysan dhaqaale ka helin xiriirka kubadda cagta ee Soomaaliya faqradda ciyaaraha ee caawan waxaanu ku eegi doonaa guushii Manchester City iyo ciyaarihii kale ee horyaalka Ingiriiska kala soco BBC News Somali Television-ka raadiyaha online-ka iyo bogga bulshada halkani waa London barnaamijkuna waa caawa iyo caalamka inta la xaqiijiyay 6 dumar ah ayaa lagu dilay weerar rag hubeysan ay ku qaadeen koox haween ah oo geedka garanwaaga la yiraahdo ka jarayay nadaafadna ka waday laamiga dhinacyadiisa wadada u dhaxaysa Muqdisho iyo Afgooye sida ay sheegeen mas'uuliyiinta maamulka gobolka Shabeellada Hoose ila waradyo deegaanka ayaa BBC-da u sheegay in rag hubeysan oo watay gaari yar ay yimaadeen halkii haweenku ay shaqada ay ka wadeen waxaana ay dableydii weerarka markii ay geysteen kadib ay hore u sii kaxaysteen 2 qof oo kale magaalada Muqdisho Sabtidii iyo Axadii aynu ka soo gudubnay waxa ka dhacay dilal kala duwan oo uu kamid ahaa dilkii xildhibaan Cismaan Cilmi Boqorre oo baarlamaanka Soomaaliya ka tirsanaa oo toogasho lagu dilay kadib markii lagu weeraray gaarigiisa xildhibaan Boqorre waxa uu ahaa xildhibaanka ugu da'da weynaa golaha baarlamaanka ee Soomaaliya haddaba ururka haweenka Soomaaliyeed ayaa ka hadlay dilkan ugu dambeeyay maanta ee dumarka nadaafadda ku howlana waxaana yiraahdeen dilka noocaan ah wadankan way ku yaraayeen runtii way ku yaryahay sababtoo ah hadda ka hor waa jirtay gabdhihii ka shaqeynayay jidka oo bambada loo geliyay qashinka oo gabdho badan ay ku leedeen oo ku dhaawacmeen inta kale runtii waxay la wadaageen dadka ay la wadaageen way jiraan dilal gaar ah oo gabdhaha la beegsado laakiin sidaan oo kale wali ma dhicin taariikhda intaas oo gabdhood oo shaqeynaysa oo gaaraya ilaa 8 gabdhood in inta la qaato indhahooda shanta ah dadkii oo jooga baas la beegsado lagu furo wali hore uma dhicin cadaaladda iyo sharciga ayaa meesha ka maqan hadii cadaalad iyo sharci ay jiri lahayd oo dadka dhibaatada ku hay ummadda Soomaaliya cadaaladda la horkeeni lahaa ma dhici lahayn tan oo kale tood waxa wax dilayana waa caruurteena maaha cid kale oo ajnabi ah oo noo timida maaha waxa loo baahan yahay marka in gabdhaha Soomaaliyeed ay u istaagaan sidii loo badbaadi lahaa haraaga Soomaaliya maxkamadda gobolka Hargeysa ayaa maanta wax dambi ah ku weysay Abwaan Cabdiraxmaan Abees oo dacwad ka dhan ahi ay ku socotay dhowrkii toddobaad ee ugu dambeeyay abwaanka waxa lagu soo eedeeyay in uu gabay uu tiriyay oo ku saabsanaa xorriyatul qowlka iyo waliba dhibaatooyin uu sheegay in ay ka jiraan saldhigyada ciidamada booliiska taasi oo ciidamada booliisku ay dhibsadeen muddo bil iyo dheeraad ah ayaa abwaanku uu xirnaa BBC-da ayuu la hadlay markii maanta la sii daayay أنا waxaan qabaa waan faraxsanahay inaan cadaalad helay ayaan dareensanahay waxaanan doonayaa oo aan ka sii jeclaan lahaa qof walba oo reer Soomaaliland cadaaladda aan maanta helay ee garsoorka dalku ku amaanan yahay oran maayo ku mahadsan yihiin laakiin ku amaanan yihiin shaqadooda si fiican u qabsadeen oo cadaaladda ay sugeen waan ku amaanayna waana ku sii dhiirigelinaynaa in cid walba oo reer Soomaaliland inta in leg ay hesho oo cadaaladda iyo ummadda la kobciyo anigu umaan xidhnayn wax anigu ii gaara waxaan aniguba ka damqaday ummad kale iyo dad wax duruufo aan arkay dadkuna saas iiga damqadeen aad iyo aadna waan u faraxsanahay anigu markaas ku soo duubto halganka cadaaladda iyo inaan wixii aan anigu arko si akhlaaqada oo wanaagsan aan u soo gudbiyo iyadoo oo baqasho iyo habrasho iyo wax ileexinaya aanu jirin iyo xadhiga ujeedada aan u xidhnaana waxay ahayd haddaba xeer ilaalinta ayaa raacfaan ka qaadatay go'aanka garsoorka ee lagu sii daayay Abwaan Abees waxaase damaanad ku soo daayay garyaqaanadii uu doodayay sidaasi ayaana iminka banaanka uu ku jooga abwaanka xariga abwaanka ayaa waxa si weyn uga soo horjeestay ururada xuquuqul insaanka u dooda ee gudaha iyo dibaddaba
guuleed dafac oo ka mid ahaa dhowr garyaqaan oo abwaan abees u doodayay ayaa BBC-da la hadlay markii ay ku guulaysteen dacwadii ay muddada ku soo jireen walow iminka racfaan laga qaatay. بسم الله الرحمن الرحيم محكمة gobolka Hargeysa maanta garsooriyay dacwadda Cabdiraxmaan Abees ayay wuxuu soo saaray xukunkaas uu ku sheegay in wax dambi lagu waayay Cabdiraxmaan Abees oo ahaa hadalka uu jeediyay gabaygiisu mid uu ku isticmaalayay xuquuqaadka dastuuriga ee uu ogol xorriyadka inuu hadli karo marka Cabdiraxmaan waa la fasaxay maxkamadda inuu xorriyadiisa bay soo celisay runtii muddada dheer uu xidhnaa labada bilood ku dhowdhoobay waxay muujinaysaa in lagu hayay maaragtay waxaan sax ahayn maadaama aan lagu helin wax dambiya laba mas'ala ayaa ka dhalanaysa qareen ahaan anagoo la tashan doona muwakkilkayga waanu ka tashan doonaa qaabka ugu wanaagsan ee aan u isticmaali karo sharciga si uu heli karo magdhowga u baahan yahay anagu runtii rafcaanka way jirtaa ay qaateen xilaalintu wax dhiban oo ma aragna haday jiraan waxay la iman karaan rafcaanka maxkamadda dacwadda qaaday maragyada qaatay waxa way ku weyday xaq u leeyihiin rafcaanka qaataan Cabdiraxmaan Abees qareenadiisuna waxay diyaar u yihiin maxkamadda rafcaanka doodooda ka cadeeyay marka macna weyn lama leh laakiin anagu waan ku niyadsanahay cadaymahan u haysano iyo dooda sharciyan u haysano maxkamad kasta oo la isla tago inay dhinacayaga u helin bal markana aynu eegno qodobada kale ee ku jira wararka caawa. Maxamed bin Salmaanka Sacuudi Carabiya ayaa Masar kula kulmay hogaamiyaasha Yurub. Shir madaxeedka midowga Yurub iyo jaamacadda Carabta ayaa ka socda magaalada Sharm el-Sheikh ee dhacda Badda Cas. Dalalka Yurub shirkan waxay ka doonayaan wada shaqayn wanaagsan oo dalalka Carabta ay la yeeshaan si loo xoojiyo doorka midowga Yurub ee gobolka marka la barbar dhigo Shiinaha iyo Ruushka. dalka Nigeria khubarada siyaasadda wadankaasi waxay sheegayaan in doorashada madaxtinimada ee madaxweyne Buhari iyo ninka ganacsadaha ku xigeenka madaxweynahan ahaan jiray Atiku Abubakar ay noqon doonto tii ugu adkayd ilaa dhamaadkii xukunkii military ee 99kii. labada nin waxa la sheegayaa oo jira 70 Meeyo in ay yihiin rag waayeel laakiin dad badan oo reer Nigeria oo u codeynaya ayaa dhalinyaro u badan 70%. arrimaha la isku hayana waxa kamid ah shidaalka dhaqaalaha dagaalka lagula jiro kooxda Islaamiga ee ka dagaalanta waqooyiga bariga dalka. boqolaal dadka reer Suudaan ah ayaa isugu soo baxay banaanbax ay uga soo horjeedaan dowladda madaxweyne Umar al-Bashir inkastoo oo maalintii Jimcihii lagu dhawaaqay xaalad degdeg ah oo lagu dhawaaqay wadankaasi shalay waxa jiray warar sheegaya in ciidamada ammaanka ee Suudaan ay sunta dadka ilmada ka keenta ay u isticmaaleen dhowr banaanbax oo ka dhacay xaafado ku yaala magaalada Khartoum iyo wabiga Omdurman. Ra'iisul wasaaraha wadanka Senegal ayaa sheegay in madaxweyne Macky Sall uu ku guuleystay xilli kale xafiiska doorashadii dhacday Axadii oo uu helay ugu yaraan 50% wareegii koowaad. musharaxiinta mucaaradka ayaa si arintani muran ka keenay waxaana ay ka digeen in lagu dhawaaqo natiijo aan rasmi ahayn. natiijooyinka ugu dambeeya waxa la filayaa inay soo baxaan ilaa Jimcada. dalka Botswana waxa caan uu ku yahay meelaha uu amaankana uu ku yahay maroodiga Afrika laakiin waxa kale oo jirta khatar weyn oo la xiriirta ugaarsiga foolka maroodiga sida ay muujinayso cadeymo ay BBC-du aragtay. waxaanu baadigoobnay sida ay wax uga jiraan khatartan waxaanu ogaanay cadeymo muujinaya ugaarsi ka socda deegaanka caanka ee la yiraahdo Okavango Delta. waxa laga yaabaa inaad ka murugooto muuqaalada iyo wararka ku jira warbixintan. Cabdixaafid Caawil Ismaaciil ayaa soo jeedinaya. saddex qaybood marka laga dhigo maroodiga Afrika waxa uu ku nool yahay Botswana 130 kun oo maroodi ayaa halkaasi ku nool kaymaha laakiin dhibaatooyin ayay wajahayaan. Mike Chase waa saynisahan Afrika ka sameeya baaritaan uu hawada ka duubo. baaritaankiisii ugu dambeeyay ee uu ka sameeyay waqooyiga Botswana waxa uu arkay waxyaabo warwar ku beeray qalfoofyo. deegaankan waa meel aad looga ugaadhsado si aan sharciga waafaqsanayn 1 kiiloomitir oo isku wareeg ah waxaa yaallo 88 maroodi oo la dilay. waxa uu sheegay inay dawladda dhigaha ka fadhiisatay digniinihiisa sababtaasna uu caalamka ugu sheegay dadka qaar ayaa ku eedeeyay been abuur liisankiisiina waa laga qaaday. markii muuqaalada laga qaaday deegaanadan ku yaala Botswana waxa la arkay bakhtiga maroodi badan caddayn ayay ahayd ugaarsi aan sharciga waafaqsanayn waxaanu ku nimid diyaarad si aanu bal u xaqiijinno tiradaasi. halkan ayaan joogay bishii Sebtembar 4 bilood ka hor markaas ayaa maroodigan la laayay maalmo gudahood. waad arki kartaa in si sharci darro ah loo ugaarsaday. maroodigan wuu noolaa markii faanta lagala baxayay.
laba maalmood gudahood waxaanu aragnay bakhtiga 60 maroodi warbixinta ugu dambaysa oo aanay dawladdu weli soo saarin 6 jeer ayay ka badan yihiin maroodiga imika ama xilli aan fogeyn la laayay waxaanay ugu yeedhaan dhibaatada ugaarsiga maroodiga ee aan xadka lahayn 9 mas'uul oo ku takhasusay howlaha dilka maroodiga ayaa qiimeeyay warbixintan laakiin dawladdu weli su'aal ayay gelinaysaa tirada dhabta ah Nobody can deny that elephants are being killed in Botswana. cidina ma dafiri karayso in maroodiga lagu laayo Botswana waxa kaloo inuu ognahay in qaaradda Afrika iyadana maroodiga lagu laayo laakiinse waxaanu beeninaynaa in 7 maroodi lagu dilay meel u dhow xarun lagu ilaaliyo xayawaanka duurjoogta ah oo ku taalo waqooyiga Botswana waayo halkaasi waanu tagnay manaanu arag qalfoofkii iyo bakhtigii 18 maroodi ee la sheegay We went there and we couldn't find the 87 carcasses. tiradani ma badna marka loo eego tirada guud ee maroodiga Botswana laakiin shaqaalaha dalxiisku waxa ay aaminsan yihiin in loo baahan yahay in arrintan laga wada shaqeeyaynta aanay faraha ka bixin waxa aan aaminsanahay inay dawladdu in muddo ah qarinaysay mar haddii iminka la kashifayna waxaa noo muuqata inta dhibaatadu ay la eg tahay dadkan wax ugaarsadaana ay iminka meel xun wax marinayaan dawladdu way haysaa awoodda ay wax kaga qaban karto mushkiladan laakiin dhibaatadan ugaarsigu waxa ay ku dhex jirtaa dagaal u dhexeeya laba siyaasi oo waaweyn madaxweynaha cusub iyo hoggaankii uu ka guulaystay oo arrintan dhan xaal abuur ka dhigaya mar walba waxaad nagala socon kartaan BBC Somali Facebook fadlan waxaad raadisaa BBC News Somali halkaasi waad ka heli doonto muuqaallo falanqayn dheeraad ah iyo wararka ugu waaweyn si aad u hesho wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamkaba nagala soco BBC Somali Twitter-ka iyo Instagram wali waxaa noo soo socda oo qaybta dambe ee barnaamijka aad ku daawan doontaan gabdhaha kaliya ee ku dhiiraday in ay kubadda cagta ay ku ciyaaraan magaalada Muqdisho oo hadda sheegaya in aysan dhaqaale ka helin xiriirka kubadda cagta ee Soomaaliya waa qaybta labaad ee barnaamijka ee aan naga tagin wax yar kadib waan isku soo laabanaynaa wali waxaad daawanaysaan caawiya caalamka waxaan ahay Farxaan Maxamed Jimcaale balan xasuusiyo qodobada wararka ugu waaweyn ugu yaraan 6 dumar ah ayaa lagu dilay weerar rakubaysan ay ku qaadeen koox haween ah oo nadaafadda ku howlana inta u dhaxaysa jidka Muqdisho iyo Afgooye waxay baadi goobayaan ammaan laakiin seerayaasha iyo kaymaha ku yaala wadanka Botswana ma yihiin meel maroodigu uu ku nabadgalayo haweenka Soomaaliya in ay ka qayb galaan ciyaaraha aad ay u hooseysa gaar ahaan marka laga hadlayo kubadda cagta laakiin hadda waxaa jira gabdho tiro yar oo ku dhiiraday in ay ciyaaraan kubadda cagta iyadoo aysan haysan meel ay caawinaad ay ka helaan hay'adda kubadda cagta ee FIFA ayaa waxay sheegtay in ay caawimo dhaqaale ay ku bixiso kubadda cagta ee haweenka Soomaaliya intii u dhaxaysay sanadihii 2013 ilaa 2016 FIFA waxay siisay xiriirka kubadda cagta lacag gaaraysa $225,000 oo u gaara haweenka sidoo kale labadii sano ee ugu dambeysay waxa la siiyay xiriirka kubadda cagta $500,000 sida uu sheegay afayeen u hadlay hay'adda FIFA sanad kasta marka la eego 100,000 oo kamid lacagtaasi waxa loo qoondeeyay haweenka sida uu qabo sharciga FIFA haddaba Sheema Maxamed oo ah gabar loo magacaabay sanadkii tagay gudoomiyaha guddiga haweenka ee xiriirka ayaa waxay ku eedeysay xiriirka kubadda cagta ee Soomaaliya in ay diidan yihiin horumarinta kubadda ee haweenka Soomaaliyeed
laakiin xiriirka ayaa iska fogeeyey eedeyntaasi oo diiday. Waryahayaga Qaalib Xasan Baaruud ayaa warbixintan nooga soo diray Muqdisho. kubadda cagta waa ciyaarta Soomaaliya loogu jecel yahay. rag iyo dumarba taageeradeeda waa loo siman yahay, laakiin ciyaarta kubadda cagta looma sinna. Golden Girls waa naadiga hablaha ee Muqdisho. ciyaaryahanadani waxay ku jiraan gabdhaha tirada yar ee ciyaara kubadda cagta, iyadoo ay caqibada amni iyo kuwa dhaqanba hor yaaliin. anaga rajo badan iyo hami badan waa leenahay, gabdhihiina way rabaan inay kubadda cagta mar uun karmeeyaan, sababtoo waxaan nahay dad kubadda cagta in badan taageero sidii aan nahay gabdheena Soomaaliya. laakiin se duruufaha iska jiro, gabdhihii qarash badan ma haystaan, darees ma haystaan, kabiir ma haystaan, caafimaadkooda laga taxadiray. saasay tahay waxa waa weli waxay rabaan inay macnaha weli kubadda cagta ciyaaraan. naadigan waxaa sanadkii 2017 asaasay Shayma Maxamed. xiriirka kubadda cagta ee Soomaaliya ayaa Shayma u magacaabay gudoomiyaha guddiga haweenka kubadda cagta 2018. waxay hadda xiriirka ku eedeynaysaa inay diidan yihiin horumarinta haweenka kubadda ciyaara. koob baahida aan ka leenahay waxay ahayd garoomada inaan helno. garoomo 100 jeer kun jeerna waa warsaday, wayna noo diideen inayna siiyaan maadaama gabdhanahay waxay dhahaan waan cabsanaynaa ma siin karno. tii labaad aan dhahay waaya dib ma lahan garoomo ijaarinayna. tan labaad oo baahideena ahayd waxay ahayd in qalab aan helno banoonigi wixii. wayna xisaabiyeen 10 banooniyana siiyeen in qalabka oo xisaabsan oo intaas oo dhameen maadaama gabdhaha ay soo badanayeen qalabka inaaf ma ku ahan. ayagana waxay ugu dhaheen budget ma jiro maadaama waxaan cusub tahay budget FIFA hadda waa loo diri doonaa. anigana waa iska aaminay. laakiin gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta ayaa noo sheegay inaysan jirin naadi ama hal gabadh oo u diiwaan gashan xiriirka. gabdhaha Soomaaliya hadda ma jirto hal koox xataa oo gabdhaha oo registered u ah ama baleeriisa Soomaaliya horta ma qabto. Soomaaliya ma qabto gabdho macallimiin ma qabto, gabdho garsoora ma qabto oo kubadda cagta ah. laakiin waxay qabtaa gabdho ciyaaro basketball ah, gabdho ciyaaro atleetikada ah, gabdho ciyaaro handballka. Soomaaliya way leedahay. xiriirka kubadda cagta ee Soomaaliya waxa uu FIFA ka helaa caawimo dhaqaale oo loogu talagalay kubadda cagta ee haweenka. intii u dhaxaysay sanadkii 2013 ilaa 2016 balse gudoomiyaha ayaa noo sheegay inaysan isticmaalin lacagtii loogu talagalay haweenka caqibada jira awgeed. waxyaabaha cadeen waxa kamid ah wadankeen inuu 100% muslim yahay oo culture ahaan ay kubadda cagta gabdhaha inay dheelaan ay aad uga soo horjeedaan. waxaa cadeen dhaqanka Soomaalida inuusan raali ka ahayn. waxaa cadeen wadanka ku neenay security-giisa inuu aad iyo aad micnaha uusan u saamixin in si waadax ah loo sameeyo intaas oo wareys gareen aadeen ugu warqabaan. that is why oo aan wixii aan loogu talagalay gabdhaha aan meel isaga dhigno inaan wadi karin aan u sheegnay problems ka jira ogeys. marka wax ay FIFA ogeen maha, waa wax ay aad ugu warqabto. afayeen u hadlay FIFA ayaa noo xaqiijiyay in xiriirku uu lacag kooban u isticmaalay garsoorka iyo kubadda haweenka intii u dhaxaysay 2016 ilaa 2018. hadda gabdhuhu waxay ku ciyaaraan garoon kan yar iyagoo maalintii kiraysta 2 saacadood. mustaqbalkana waxay rajaynayaan mid kan ka wanaagsan iyo taageero dhaqaale. laakiin waxaa taa u dheer diidmo iyo cadaadis kaga yimaada bulshada kaasoo ku salaysan dhaqanka Soomaalida. waxaad moodaa inay gabdhahani si tartiib ah uga soo gudbayaan cadaadiskii dhanka waalidka hanka ay kubadda u qabaan awgeed. sida Ubax oo hooyadeed muddo dheer kadib u ogolaatay inay ciyaarto kubadda cagta. amageeda inaan u yeelo aan isaga qasbana saacada ya way ani ma ka cili karo oo dan ka cishay karo mar horan ka cishay lahay Sooma. hamiga hooyo markay ka baxday hamigeeda daba kacad Sooma ya hamigeedu waxa uu noqday inay kubadda ciyaarto falmo u jeeda loogu faatahay Soomaalida ku maamaad waa u faatahay maca salaamada. gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta ee Soomaaliya waxa uu noo sheegay in faraq u dhaxeeyo ragga iyo dumarka kaasoo ah in wiilasha tababarka loogu bilaabi karo 18 ilaa 20 laakiin ay gabdhuhu aqal gali karaan marka ay da'da soo gaadhaan. hadda kadibna ay xoogga saari doonaan tababarka iyo tayeynta gabdhaha iskuulka hoose dhigta. Qaalib Xasan Baaruud, BBC Muqdisho. haddaba caawa waa habeenkii faaqidaada ciyaaraha ee toddobaadka. waxaa stuudiyaha igula sugan Maxamed Axmed Daysane. waxaan ku bilaabaynaa koobkii EFL-ka ee xalay la soo gabagabeeyay Chelsea iyo Man City.
120 daqiiqo la isdaafi waayay maxaa sababaad is leedahay sababta ugu weyn waxay ahayd taasoo Chelsea 6 gool looga soo adkaaday Premier League cabsi weynna ka qabtay haddii ay garoonka isku fidisana saarina oo yiri weerar ayaan ku cayaaraa laakiin taas muusan sameyn ee gadaal ayuu galay qaybtiisa ayuu gadaal u degay xataa numberka 9aad uu ka tagay Giroud iyo uu kaydka u geliyay marka wuxuu kale sameeyay labada ciyaartoy oo geesaha uga ciyaarayay oo kala ahaa ciyaartoygii William iyo Petro wuxuu sameeyay inay difaaca ay kaalmeeyaan Sterling iyo Bernardo Silva inay caawinaan taas ayaa waxay u suurtagali weysay City inay marnaba dhex marto Chelsea ay gool ka dhalisay markii la iskugu soo noqday qaybtii labaad waxa u malaysaa Chelsea wax yar inay soo roonaatay taasoo hasaar dhibaato ku hayay marka kubadda la soo gaarsiiyay laakiin wax weyn oo iska bedelay maysan jirin ilaa la isla gaaray saacadii 1 saac iyo 20 daqiiqo la isla gaaray Chelsea aad ay isu difaacday wayna waxa u malaysaa inay horumar arintaas ay ka sameysay waan gartay marka tababaraha kooxda Chelsea wuxuu rabay inuu bedelo goolhayaha markii ciyaartii la ismari waayay oo daqiiqada ay ka dhimantahay iska muuqatay in garsoorayaal rigoryaal la dhigayo maxaa dhacay baad is leedahay waxa ugu weyn waxay ahayd goolhayaan 71 milyan laga soo bixiyay Kaba wuu dhaawacmay mar labaad ayuu haddana dhaawacmay marka macalinku wuxuu go'aansaday inuu bedelo oo Willy Caballero oo City ahay la keeno kaasoo aqoon u lahay City-na ka yimid 2016kiina 3 rigoor continue iyo Lucas iyo Milner ka qabtay Liverpool taasna ay ku qaadeen koobkan marka wuxuu rabay ninkaas in la keeno si rigoorayaasha takhasus ugu yahay sida loo qabto laakiin amarkiisi waa diiday Kaba wuxuu waa fiicana waa joogaya wuu ku adkaystay xataa macalinku uu xanaaqay wuu cararay oo tunnelka uu sii aadi rabay haddana wuu soo noqday marka waxa u malaysaa meeshaas in awoodii macalinka la diiday laakiin aysan dhici karin xoog in lagu soo saaro taas ayaa xoogay waxay uga dhigan tahay marka cadaadiskii hore u saarnaay kooxda tababarnimada waxa u malaysaa culays inuu sii fuulo sababtoo macalinka waxa u malaysaa awoodiisii inay diideen ciyaartoydii marka taas culays ayuu laakiin hadda faa'iido inuu ka helaabo u malaysaa sababtoo waxaan la soconnaa ciyaartoydii in Mourinho ay awoodda ciyaartoyda Chelsea looga raacday Man United awoodda ciyaartoyda Pogba iyo Martial iyo markay isqabteen laga raacday hadda waxa u malaysaa inuu guddiga ka heli doono taageero la sii awood la dhaho bal soco waxa ka maqlay Premier League aan soo galna marka horyaalka Ingiriiska Liverpool qalqal baa la geliyay waxa islahay way rayn doontaa oo hoggaankiisa fiican u qaban doontaa marka barbardhac bay galeen Manchester United Liverpool saan ognahay waa koox xoolo ku socoto awood lahayd dhowr barbardhacna soo gasho oo Leicester ay la soo gashay West Ham ay la soo gashay culays saarnay ayadii City-na way sinaayeen marka saas daraadeed waxa la sugay inay badiyaan 3 ciyaartooyana ka dhaawacantay kooxda Man United oo Lindegaard ayaa ka dhamaatay ayaa ka dhaawacmay marka fursadaas inay ka faa'iideystaan ayaa la filay laakiin suurtagal ay u naqaweysay inay ka faa'iideystaan ay gool dhaleen oo marka ma la isdhihi karaa Liverpool shaxdoodii baa wax ka bedeleen oo qaabkii ay u ciyaareen naqshadii wax ka bedeleen Liverpool qaabkii ay u ciyaari jireen waxba kama bedelan oo Mane iyo Firmino iyo Sadio Mane way joogaan laakiin waxa u malaysaa raggaas sidii wax loo soo gaarsiin jiray in la soo gaarsiin karin dhexdooda waxa u malaysaa Henderson iyo Fabinho iyo Waldaman inay kubadda dhaqso ay gaarsiineen Salah lama eeday kar ilaa hadda 17 gool ayuu dhalay Firmino waa ninka isku xiro Mane waxa u malaysaa in la caawino ayuu rabaa marka xawligii sanadka hore ay ku socdeen kuma socdaan oo waxa u malaysaa inaysan wax ka maqayn qaasatan waxaan qabaa dhexda ayaa kaalmay jirtay oo ku soo dhawaa jirtay marka Liverpoolna waxa u malaysaa hadda qalqal inuu soo galay oo sidoo hore aysan ahayn waxaan rabaa marka horyaalkii marka hadda waa tan weli marba cid ay hormarayso ama Liverpool ha noqoto ama Man City maxaa la isdhihi karaa uu ku dhamaan doonaa ciyaaray badina way harsan yihiin weli kulli hadda waxa u malaysaa Liverpool inay fursad haysato sababtoo City hal dhibac ay hadda dheerta City-na Fernandinho ayaa ka dhaawacmay oo Carabao Cup Laporte oo difaacana oo ka dhaawacmay marka waxa u malaysaa inay fursad ay ugu faa'iideystaan laakiin hadda Everton ay la ciyaar doontaa oo gurigooda ay kula ciyaar doontaa arbacada way ciyaar doontaa Liverpool marka hadii ay ka gudubto kooxda Everton waxa u malaysaa inay haysato rajo aad u weyn aad baad mahadsan tahay Maxamed Axmed Deysane oo faaqadaada ciyaaraha ka faaloonayay
inta ayaan ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkii caawa iyo caalamka waad ku mahadsantihiin daawashadiina intaanu mar kale dib u kulmayno aniga iyo asxaabta halkan Londonba waxaan idinkaga tagaynaa sidaa iyo habeen wanaagsan